in xisbiga UCID uu jawaabayo qolaha ku qabatay hotelka Mansoor ee yidhi waxaan nahay xisbiga UCID ku garab kamid ah oo ku kulmiye la galay heshiis aan jirin markuu madaxweynuhu isticmaalay qabyaalad oo uu reerkoodii ku qasbay xubnihii ka soo baxay UCID inay kulmiye u codeeyaan kuwaas oo ahaa inaanay sharcigu sidaas dhigayn dimuqraadiyadda iyo waxa ay ka soo horjeesteen inay xaq u lahayn inay heshiis la galaan xisbi kale sida xeerka xisbigu dhigayo qodobkiisa 22aad farqadiisa 4aad 5aad oo dhigaya wixii heshiis ah ee xisbigu la gelayo xisbi kale uu awood u leeyahay inuu saxeexo gudoomiyaha xisbigu inuu saxeexo markii uu arkay oo la tashaday xisbiga xisbigu wuxuu xilkii ka qaaday ku-xigeenkii xogayaha guud Cabdinaasir Yuusuf Cusmaan qodobkiisa isagoo u cuskaday qodobkiisa 7aad farqadiisa 1aad 2aad 3aad 4aad iyo 8aadba in tirada xildhibaanada ku dhawaadka ah ee heshiiska sharci darrada ah ay yihiin 9 xubnood oo kaliya aan ahayn 12 ay sheegayaan oo xubno dhacay oo saddexii ay ka mid noqdeen heshiiska isku dareen iyagoo aan ku jirin iyagoo oo horena u saxeexay heshiis sharci darro ah oo ay la galeen xisbiga ay daacad u noqon maanta ay jabiyeen heshiiskii iyo xeerkii kale ee historiga waxa kaloo halkaas tacsi aan uga diraynaa shacbi weynihii u soo doortay in ay u codeeyaan isbedel inay maanta awoodoodii dadka intay isticmaaleen oo ay qaateen codadkoodii ay ula tageen xisbigii kulmiye xaakinka ahaa iyagoo danahooda gaar ah ku fushanaya oo aan eegin shacbigii u codeeyay isbedelka taana aad iyo aad ayaan dadweynihii u codeeyay uga tacsiyadaynaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرة حسب لما تيجي كرم حي مكان وتجي وين حسب الدنيا هذي الدنيا وعضيان وشرع الضر وأنا خايمي.